Bulsho kasta oo horumarta waxa ay ku horumartaa isku duubnida iyo joogteynta hadafkeeda. Kani waa Masjidka Nuurayn ee degmada Balad Xawo, waana mid ka mid ah masaajidda ugu faca weyn degmada. Masjidkan ayaa martigeliya jamaacooyinka ugu badan, gaar ahaan waqtiyada salaada iyo maalmaha Jimcada ee khudbada la akhriyo. Si kastaba ha ahaatee, masjidka ayaa marka aad tagto waxaa ka muuqda baahi ay tahay in wax laga qabto, taasi oo ah in masjidka uusan lahayn wax roog ah ama hal nooc oo roog dhammaystiran ah si bilicda masjidka ay u soo baxdo. Taasi beddelkeedana hadda lagu isticmaalo 3 roog oo kala nooc ah. Muddana la soo isticmaalayay iyadoona weliba ay qayb sii bannaan tahay ama roog la'aan tahay. Waxaa intaasi sii dheer, isla markaana ah baahida ugu weyn ee masjidka, in muddo aad u fog uu dhismaha masjidka qabyo yahay, gaar ahaan qaybta kore oo haatan u baahan in la dhammaystiro. Haddaba, guddiga masjidka iyo qaar ka mid ah culimada degmada oo masjidka ku sugan ayaa baaq dheer u diray cid allaale ciddii Alle wax siiyay oo ka qayb qaadan karta dhammaystirka masjidka iyo u iibinta roog cusub inay ka qayb qaataan, iyagoona sheegay in loo soo marsiin karo akoonnada kala duwan ee mu'asasada Salaam Relief Foundation, kuwaasi oo shaashada idinkaga muuqda. Haddaba, culimada oo baaqaasi diraya ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa: بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، waxaan joognaa Masjidka Nuurayn ee degmada Balad Xawo maanta oo ah maalin Isniin ah, taariikhduna ay tahay 5 bishii 6 2023. waxaan maaragtay codsi u jeedinaynaa annagoo maaragtay masaajidka qaybtiisa koro dabaqa oo qabyaha ka hadlayna iyo gogasha masjidka mu'asasatu Salaam lil-Iqaathati wat-Tanmiya ayaanu codsi u jeedinaynaa inay noo dhammaystirto masjidka Nuurayn ee degmada Balad Xawo qaybtiisa dabaqa koro. waxaan ka codsanaynaa inay noo dhammaystirto qabyo weeyo, waa dadan yahay dabaqa qaybtiisa koro, laakiin waxaa u dhiman salaaxmihii baa u dhiman, dariishadihii baa u dhiman, waxaa u dhiman muxuu ahaa laborafiinadii, waxaa u dhiman safiito, waxaa u dhiman gogashi mu'asasada iyo dadka muxsiniinta ah oo maaragtay caalamka jooga muslimiinta dhammaan. waxaan ka codsanaynaa mu'asasatu Salaam iyo waxaan ka codsanaynaa inay masjidka noo dhammaystirto dabaqa koro, qaybta yacni maaragtay dabaqa koro. waxaa kaloon ka codsanaynaa gogasha masjidka inay naga caawiso oo masjidka runtii roog waxaa saaran 3 qaybood oo kala nooc ah, qaybna waa bannaan yahay oo roogba ma saarno. marka inay masjidkana noo arad bixiso ayaan mu'asasada ka codsanaynaa oo gogashiisna ay la wareegto. cid kastoo muxsiniinta yacni ka mid ah muslimiinta meel kasta dhawaaqanaga maqlayso, muuqaalkanaga arkayso, waxaan ka codsanaynaa inay noogu soo hagaajiso wixii yacni tacaawun iyo muxuu ahaa ay bixinayaan mu'asasatu Salaam inay noogu soo aadiyaan ayagana ka codsanaynaa. intaas ayaanu maaragtay codsiganaga ku saabsan yahay. waxaana leenahay cid kastoo ka qayb qaadato ankooda Allaha gaarsiiyo, ilaahayna ha barakeeyo. ikhwaani fillah, waan idin salaamaynaa awalan muslimiinta meel kasta joogtaanba. waa sidii uu sheegay walaalkay Sheekh Axmed Macalin Xasan, meeshii aan joogna waa Masjidka Nuurayn. waxaan u taaganahayna waxaa weeye inaan muslimiinta kala hadalno waxyaabooyinkiisa dhiman oo qabyada ah, inay taagan tahay baahi culus oo loo baahan yahay inaan muslimiinta la wadaagno. ujeedka iyagu waa intaas. awalan waxaan leenahay muslimiinta meel kastoo joogaanba, Masjidka Nuurayn qabyo weeye, qaybtiisa kore qabyo weeye. cid kastoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey, waxaan maxaan ku rahay u sheegaynaa inay ka qayb qaataan, ajirkaas qaaliga ay qaataan ayaan u sheegaynaa. waxaa kaleeto oo dheeri ah, gooshii masjidka waa roog la'yahay. waxa loo baahan yahay in la helo roog, in la helo oo maxaan ku rahay la goglo ayaa loo baahan yahay. khaas ahaan codsiganaga waxaan u sii jeedinaynaa oon sii marsiinaynaa walaalaha muslimiinta mu'asasatu Salaam inay maxaan ku rahay hawshaas ayada ah ay ka qayb qaadato oo wixii ay karaankeeda ay ka qabato, oo hadday dhammaystiri karto masjidka ay noo dhammaystirto, haddii roogga isaga ay maxaan ku rahay nooga kaalmayn karto ay maxaan roogga saarto. amuurahaas ayaan maxaan ku rahay rabnay inaan ka sheekayno, ka hadalno. masaajidku wuxuu u baahan yahay roog, buu u baahan yahay gogol,
wuxuu u baahan yahay dhamaystir buu u baahan yahay dhamaystir ayuu u baahan yahay muslimiinta meel kasta joogaanba shaqadaas ayada ah cidii ka qayb qaadan karto ka faa'iideysan karto inay ka faa'iideysato ayaan iclaaminaynaa ilaahayna waa ka dhahay wa tacaawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la tacaawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan isu kaalmaysta wanaaga isu kaalmaysta maxaan ku raahay isu kaalmaysanina colaytanka iyo dambiga isu kaalmaysanina ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala si ilaahay subxaanahu wa ta'ala maqsadkanaga ilaahay noo gaarsiiyo hawshaas ayada laga qayb qaato khaasatan wax si gooni u sii hadlaynaa mu'assasatu salaam hawlahaas ayaga aan ka hadlayna cidii maxaan ku raahay wax bixinayso inay ayada noo soo mariyaan oo ayada magaceeda ay wax noogu soo diraan noo soo mariyaan haatan ayada ayaa maxaan ku rahay juhdiga ugu badan ayada ayaa hadda masaajidka ka wado cidii kale to maxaan ku rahay hawsha sida ka qayb qaadanayso inay ayada inoo soo mariyaan ayadana maxaan ku rahay waa iclaan aan sii gudbinayno waalid salaam ya salaamta islaamka yaraadu ku salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib waa sidii culimada iga horeysay sheegtay waxaan idin soo carlaynaynaa oo idin soo bandhigaynaa baahida ka jirta masjidul nuurayn haddii ay tahay roog iyo haddii ay tahay dhismo qabyo oo dhamaystir u baahanba waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ah meel walba ay joogaan wa khaasatan qolada mu'assasatu salaam in masaajidka dhamaystirkiisa iyo roogiisa gacan nagala siiyo ayaan idin soo bandhigaynaa idinkana codsanaynaa walaalaha muslimiinta ana meel walba joogaan waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan oo gacan ka geystaan waxa noola soo dirayo oo masjidka lagu caawinayana la soo mariyo mu'assasatu salaam noola soo mariyo si arintaas wixii ayada ay noo hesho iyo wixii muslimiinta ay ka heshaba culayskaas ayada maartay u tawalliso Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa cid kasta oo ka qayb qaadata masaajidkaas ismihiisa iyo dhamaystirkiisa ajir iyo xasanaad tira badan oo la soo koobi karin oo Allah ka siiyo miisaankiisa xasanaadka aakhirada Allah ugu kabo aan Allah ka baryayaa subhanahu wa ta'ala